لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل يكون كأني صدحات مؤتمر كأني كوادي حقاقة دوردي اسوتي دليرada horseeda masjidka al-huda ay soo qaban qaabiyeen sheekhana al-faadil sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun ayaa u diyaar ah muxaadarada saddexaad inuu nasiyo muxaadarada cinwaankeedu wuxuu noqon doonaa subulu inhaa'i al-khilaaf wadooyinka loo maro sidii loo soo afjari lahaa ama loo dhamayn lahaa khilaafka ayay ku saabsan tahay marka sheekh mustafa waxaan leeyahay sheekhana al-faadil كسو دwow مسجدك الهدى إن بدنا أدنو تمد فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوعاً كسابسيسان qaabka ama wadooyinka loo dhameeyo muranka waxaan isleeyahay waa mawaadiicda Soomaaliya ay ugu baahi badan tahay walidalik ayaan jeclay inaan in badan ku celceliyo waxaynu ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed inay burburtay waxa ka burburayna dawladnimo maaha ee waxa burburay dadnimadoodii dawladdu waa institutions kooban oo markasta la dhisi karo laakiin Soomaali waxa burburay dhaqan iyo hidde iyo dadnimo iyo walaaltinimo iyo waxay wadaagayeen oo tiro badan baa baaba'ay wixii ka dhashayna wuxuu noqday bulshada dhammaanteed inay surnaato ama fi'aadka kooxaha bulshada oo dhami koox nabad gashay aanay jirin hadday siyaasiyiin tahay hadday odayaal tahay hadday culamo tahay hadday qabaa'il tahay hadday degaana tahay cid walba way isu qabatay waxay keensatay Soomaaligu xataa eraygii Soomaaliga la odhan jiray inuu luqadka qaarkood macna ku soo kordhiyay oo luqada Carabeed imka hadday yiraahdaan sawmalat al-qadiya waa tacbiir cusub oo naxtiyo laga qoray erayga Soomaalinimo qadiyadu way Soomaaliyowday hadii la yiraahdo yaani wax weeyaan waa waxaan xal lahayn dadku ilaa gun ilaa cidhib u haystaa weeyaan oo waa la xalili kari laayay idan ilaa xad aynu noqono luqa bini aadamku uu adeegsado ramsi lagu tilmaamo muranka iyo khilaafka iyo dadka isa sudnaantiisa bay gaadhay markasta oo Soomaaliya isu tagtana waxay ka fakaraan dawladnimo inay sameeyaan dhowr iyo 10 dawladood bay dhiseen waa duntaa laakiin wali bayskii umadu uu dunsan yahay su'aasha isweydiinta leh waxay tahay Soomaaligu dadka miyuu ka dhib badan yahay qofkan Soomaaliga ahi miyuu ka mashkilad badan yahay miyuu ka dhib badan yahay umamka kale waxa aan rumaysnay Soomaaligu inuu umam badan oo dunida jira ka dhib yar yahay inuu ka dhib badan yahay ma rumaysni ayo umamka waxa la yiraahdo waxay isu keenaan inay midoobaan siyaasiyiintu waxay ka waramaan waxa la yiraahdo sideeba bulshada looga dhigi kara homogeneous group dad isku midab oo isku nooc oo isku afkaar oo isku uquula waa waxay u dhisan tahay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda al-i'laaminta ugu badan shaqo kale ma qabato wasaaradda waxbarashada waxay samaysaa waa meesha dheriga lagu kariyo in dhasha iyo da'yarta soo socota isku si u fakari karto wasaaradda al-i'laamna
وماشي الرأي جو مدى اللغو بسلايا وحي للربا اللغو كاريه إلا ينتهي كبسلانيسو ومدى الصوماليات مركا لأيغو أفكا واسكاقمد رغاكا واسكاقمد دينتا واسكاقمد مدبكا واسكاقمد يعني almost سيدو دي homogeneous group كوين يودان دوكسي لقينو إعلام لقينو وحبا سيدو دي كوين homogeneous group هدنا وأفلق بطين ومامكي سؤاشي مركا يسويدين تالي وحويان هدي aynu u muuqano bulshooyinka inaynan ka dhib badnayn oo bulshooyin inaga kala gadisnaan badan baa wada nool bulshooyin diimo kala gadisan haysta afaf kala gadisan haysta dhaqamo kala gadisan haysta isku dawlad qura hadana ah meel qura ku wada nool qaab qura u wada nool maxaa keenay markaa dad isku diin qura ah oo isku luqad qura ah oo isku af qura ah oo isku midab kaliya inay yana wada noolaan kari waayaan dad waxaasoo dhan ku kala gadisnaada inay wada noolaadaan siday u dhici kartay baa isweydiinta leh waxaynu u baahannahay markaa inaynu wax badan dib isugu noqonno wax isweydiinno si aynu mushkilaadkeenna u xallili karno u qiimayn karno min طبع الإنسان بكمل ينو كر الرأي قد سناده وطبيعة بني آدمك من طبع الإنسان بيكمل تهي أراد أن لا يسكو قبن كره أما أركتيك لقديسان لا يلان كره maxaa teena ka gadiyay markaa ka dhigay teenu hadday isqabad yimaado inay kala guurto waxaan isku dayi doonaa markaa muxaadaradan iyo laba muxaadaro kale oo ku xiga inaan qodobka isdul taago quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa ha isqabanina walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilaahay baa sheegay waar ha isqabanin oo ha murmina hadday taasi dhacdo فتفشلوا بلد اجر فشل كلا في اللغه العربيه والضعف والليدن دونتان باللي ومغعين يد دولدنمدي ددنمدي انو way baabi'i doonta laakiin hadana ilaahay quraanka wuxuu inoogu sheegay hadiiba aynu bini aadamna inagoo mu'miniina inay dhici karto inaynu isqabanno oo maxaa xala markaa ilaahay wuxuu inoo tilmaamay wadada xal ku jira markaa fa in tanaazactum ba ilaahay fi shay waxaynu markaa u baahanay waxa weeyaan inaynu isweydiinno dadka kama muran badnin oo kama dhib badnin oo kama khilaaf badnin maxaa haddaa mushkiladeennu u xallilmi weyday waxaan leenahay bini aadamku wuxuu gartay waddada loo maro in la heshiiyo shareecada islaamigana waxay inoo sheegaysaa waddada loo maro in la heshiiyo labada qayboodbana taa bini aadamku caqligiisa uu ku gartay uu ku raadceeyey iyo ta sharcigu sheegaya furuucda mooyaane usuusha waa iskaga mid guud ahaan waa isku mid saddex dariiq baa jira oo bini aadamku mushkilaadkiisa u xallilo saddexdaa dariiq dad aan diin haysani way isku dayeen inay maraan waanay ku guulaysteen diintuna saddexda qodobba way tilmaamaysaa waxaan isku dayayaa markaa saddexda qodob inaan maalinba hal qodob soo bandhigo qodobka koowaad ee mushkilaadka bini aadamka lagu xallilaa waa waxa loo yaqaano alcaf ama gaaladu ay dhahaan forgiveness waa reconciliation methodskay maraan qaabka bini aadamku murankiisa uu u hagaajiyo waxa kow ka aba yidhaahdeen waddada loo yaqaano alcaf in la iscafiyo macnaheedu waxa weeyaan in dadka cid ka mid ee aqbasho xuquuqdiisoo dhan inuu ka tanaasulo liajli maslaxada sare in la helo qofku markuu xaqiisa oo dhan ka tanaasulaya wuxuu uga tanaasulayaa waa maxay maslaxo ka weyn oo isna uu qayb ka yahay in la helo masaladaa markaynu soo qaadno أحد العلماء بوحوا المامية معجم المفهرس لألفاظ القرآن كتاب كان كور رمية ديكشنيري كان شيء رياض القرآن كقصار وكتاب عالم مسلم وقري المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ليلاته
wuxuu soo aroorinayaa buu leeyahay 44 aayadood oo ku saabsiisan masalati alcafw. su-aashaan idin weydiinaya waxay tahay iscafiya in ilaahay inugu yidhaahdo mar waa inugu fillay socaykaa maaha. maxaa keenay inay 44 goor qur-aanka ku soo aroorto 44 aayadood inay ka warramaan iscafiya qiyaas? hal aayad baa ku fillayd in laynoogu sheego waxaan inuu wax muhima oo nolosha ka mida yahay. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku soo arooriyey 44 aayadood oo masaladaasi ka warramaysa. taa macnaheedu waxa weeyaan waxa ay tilmaamaysaa wasniga ama miisaanka qadiyadan ay ku leedahay sharciga islaamiga ah. ilaahay agtii miisaanka ay ka leedahay aayaadkaasi wax ka mida baan guud ahaan tilmaami doonaa. waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyahay wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah. ilaahay xuquuqduu marka hore sugay. dhibta laguu geysto dhib leeg baad xaq u leedahay, inta ku gaadhay in leeg baad xaq u leedahay. laakiin ilaahay wuxuu ina leeyahay faman cafaa wa aslax fa ajruhu cala allah. ciddii iyadu wax cafida ee wax wanaajisa ciddaa ajarkeed ilaahay unbuu agtiisa yaalla. ilaahay wuxuu leeyahay in tubduu khayran aw tukhfuuhu aw tacfuu can suu'in fa ina allaha kaana cafuwan gafuura. khayrka haddaad muujisataan oo si badheedhaa khayrka u samaysaan iyo haddaad qarsataanba oo xumaha aad dhaaftaan ama xuma aad dhaaftaan waxaa la simay khayr kor loo yidhi sida khayrarka badan aynu naqaano oad kor u samaysay calana, amase khayr hoos loo sameeyey oo aad qarsatay salaatuleyl iyo wax la mida iyo sadaqaad hoos aad ka khayraad hoos u qarsatay. khayrkaasoo dhan waxaa lala simay isna aw tacfuu can suu'in baa la yidhi, ama xumo aad cafidaan. fa ina allaha kaana cafuwan qadiira. aayaadka qur-aan ee masalada ku soo aroray walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. idfac bilatii hiya axsan asayi'a naxnu aclamu bima yasifuun. waxaynu cumuuman sheegnay 44 aayadood ma wada akhrii karo oo haadihi alqadiya waxdaha ka warramaya. si kale haddaan u tilmaamno fii suurati shura ilaahay wuxuu sifaynayaa mu'minka sifaadka lagu yaqaano. mu'min markuu noqdo sifaadka lagu yaqaano ay ka mid ahayd masalatu shura. aayaadkaasi waxaa ka mida sifaadka mu'miniinta maxalu shaahidka quraan tegayaaye waaladiina idaa asaabahum albagyu hum yantasiruun baa ilaahay wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha walaman sabara wagafara ina dalika lamin casmi lumuur. mu'minku baa la yidhi waa ninka haddii dhib loo geysto goosan kara, wax iska celin kara, aan dulloobin. haddana waxaa la tilmaamay walaman sabara wagafar, mansilo kasii korrayso ah qofka sabra ee dhaafa ina dalika lamin casmi lumuur baa ilaahay yidhi. nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam cumuuman intuu dhaartay xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee ay ka mid ahayd sadaqadu inaanay yaraynin xoolaha ayuu wuxuu nebigu leeyay wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza. ilaahay addoon uguma kordhiyo cafi uu wax cafiyo cizi iyo sharaf iyo magac iyo maamuus mooyaane wax kale kama qaado. yacni cafisku dullinnimo maaha baa ilaahay tilmaamaya ee qofka wax cafiya qof casiizoo korreeya buu noqdaa. laakiin nafta bini aadamka ahi inaad wax cafidaa wax fudud maaha, waayo min طabci اlinsaan abuurka bini aadamka waxaa ka mid ah xubu اlintisaari waalintiqaam. insaanka dabeecadaha ilaahay ku abuuray waxaa ka mid ah inuu jecel yahay inuu guulaysto oo cidda isqabtaanba uu ka gacan sarreeyo. waa min طabci اlinsaan. insaanku ma jecla in laga gacan sarreeyo ama laga guulaysto. laakiin cafiga macnihiisu waxa weeyaan mas'aladaasi psychologically naftaadu ay rumaysan tahay inaad ka kor noqoto caqligu ka koreeyo oo aad adeegsan karto
iyadoo dabcul insaanu yahay inuu guusha jecel yahay ama argudashada uu jecel yahay waxay naftu jeclayd inaad ka kor marto caqliga adeegsatid oo maxay ah inaad wax cafwidid waxay dhahdaan markaa mas'alatu alcafwi waa lilaqwiyaa maaha mas'alo dacfi ka warramaysa liidasho iyo qof inta laga tabarbadiyuun waa iska cafiyey taagan maaha waa mas'alo tilmaamaysa bay leeyihin qof naftiisa xakamayn kara waa mas'alo markaa tilmaamaysa qof koreeya oo caqliga in badan adeegsanaya oo awoodi kara xuquuqdiisa inuu ka tanaasulo can dullin aan uga tanaasulin laakiin can cafwin isagoo wax cafinaya uga tanaasulay nabigana calayhi salaatu wassalaam xadiidka bukhaari ku yaalla saxaabi baa wuxuu leeyahay kaannii anduru ila annabiy sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaad mooddaa inaan nebigii arkayo eegayo oo yaxkii nebiyan min alambiyaa'i aadaahu qowmu nebiyada ka mid ah oo tolkii dhibeen ka warramaya nebigan tolkii dhibeen maxay ku sameeyeen intay dhibeen ayay dhiig madaxiisa ka keeneen wejigiisa wa huwa yamsaxu dama can wajhi wejiguu dhiig ka tirtirayaa ama ka baabi'inayaa oo waxaanu leeyahay allaahuma akfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun waxa caadiga waa maxay cid hadday kaa gardarantay oo ay ku dhibto oo dhibto ay gaadho inta lagu dhaawaco in dhuuggu kaa dareero insaankaa maxaad u malaynaysaa inuu ka fekeri lahaa waa qof cadhaysan oo maxaa waxaan lagugu sameeyey ka fekeraya oo aargoosa ama wax iska dhici ka fekeraya markaad caqliga bini aadamka normaalkaa ku eegto laakiin saxaabigani wuxuu tilmaamayaa waa nebi ciddan laga warramayaa nebiga kani markaa intuu dhiiggiis ka tirtiray buu wuxuu leeyahy ilaahay ow tolkay u naxari dembigooda dhaaf waayo waxba garan maayaan nebi marka hore waxa lagu dilaya uu sheegaya waa maxay magardarruu waday yacni nebi waxaynu naqaanaa waxa uu wadaa waa inuu khayr sheego waa inuu dadka wanaaggooda ka talinayo isagoo wanaag ka talinaya abaalmarkiisu wuxuu noqday maxay in wejigiisa dhiig laga keeno adugu haddaad waxoogaa dadka diin u sheegto ay dhagax madaxa kaala dhacaan maxaad samayn lahayd ilaahu kuwan dhulka la goobaad odhan lahayd qaar maaha inkaar baa ku dhan kuwa socaya maaha laakiin ilahay wuxuu inooga warramayaa waa nebi khayr sheegaya haddana jawaabta la siiyeyna ay tahay in wejigiisa dhiig laga keeno isagu taa jawaabtu ka bixiyeyna ay tahay allaahuma akfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun ilaahu tolkay dembigooda iska cafi waxba garan maayaane idan waxaynu leenahay mas'alat alcafw waa mas'alat alkubaraa waa dadka waaweyne booska ay istaagaan waxaa laga rabaa duqaytida iyo dadka taliya siyaasiyiinta iyo leadershipka qaadada dadka ahi inay dhaqankan yeeshaan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam qaa'id ilumma buu ahaa dadka ciddii hogaaminaysay buu ahaa rasuul ilaahay soo diray dowladnimadii iyo dadka muslimiinta ana hogaaminayay ilaahay amar buu siiyey ah khudi alcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin baa ilaahay yidhi mar haddaad madax noqoto cid ku cayda cid ku dhibta cid ku maagta cid ku hiifta waayi maysid ilaahay markaa nabigiisii wuxuu ku yidhi khudi alcafw cafwiga qaado haye wa'mur bilcurf xumanaha talinin samatali baa ilaahay yidhi cafwiga qaado marka hore dadku dhibta kaaga imanaysaa cafiska qaado talada iyo amarka iyo waxaad geysanaysaana ha noqdo maxay wa'mur bilcurf samatali baa la yidhi qodobka saddexaad ilaahay wuxuu leeyahy wa acrid can iljaahiliin wax magaratadana ka jeeso yacni dad aan kaskooda iyo maankooda korranayn baa kula murmi doona ku caayi doona ku dhibi doona kaa hor iman doonta qoladaa ha la ficiltamin baa ilaahay leeyahy ficiltan ha ku dayine acrid baa ilaahay yidhi ka jeeso can iljaahiliin ayuha alaxiba marka adduunka waa kaa aakhirana dadka ahlu jannaha ilaahay markuu sifaadkooda tirinayo janna carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin marka ilaahay ka warramayo jannooyin cirka iyo dhulka ballacoodu leegyahay oo loo diyaariyey baa ilaahay yidhi kuwa muttaqiinta ah kuwa muttaqiintaha markii ilaahay sifaynayay
صفاتك كوادا لغت المامي القرآن كقصة أروري وصفات معاملات كورمية الذين ينفقون في السراء والضراء با إلهي المامي ولا السوى ذي وحلو كم ده محل شاهدكم بنتقية والعافين عن الناس با إلهي كسفي والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أي هيدكو قبو ده والعافين عن والكاظمين الغيظ با إلهي دي كاظمكو وأمرك شيء عفا كحدو سبرارك يوحي الله ميدا مركا عفا كحدو هلي مركا دو سميسو إلهي وحولي كواني والكاظمين الغيظ عددو دا وي هليان وي حديان معناه دوام حي وحويان قفك بني آدم كاهي إنو عروضا نولوشي كميتي سورة قلمها قف بني آدم إلا إذا وليقها عروني نفتو مربي وحي قادن كري ويدا وخد عيا لكن رسبون كاوي جوابت هذا محون نقرية ما يناد قعنتا في ديسابة هلك الصومالي ده صومالي قوادو عروضا قعنتو استعمالها هدو مركا ترام حاد وحاوسة بيسانا وروان مير بيلا يقولين هدو أقولي مصلحية بلدتك إلا هشيسية مركو حرية فنال بك الردي لكن لا يوحد المامية والكاظمين الغيظ ودول عرضو ده هيلي كروتشو تشين كربا إلهي سبحانه وتعالى ما انتو عرض برسنا ده مركا ساسو بود برسنا يا مايا إلهي وحلي والعافين عن الناس عرض نودقي ساهدنا وكو عفينية عرض وحلقوه قول يا مالين يا هبين صدع عشاك بدل شرعاتو كوما وقال اين الضدمكو مغناط ولذلك بقى إلهي وحلي والعافين عن الناس وياه وكو ودتك عفينية والله يحب المحسنين بقى الله كنت المامية مركا أنك ورمية مركا قد يدع عفوك dadka in badanay waxay u fahmaan in laga warramayo alqadaaya alfardiyya qof dayn lacag kula qof iyo qof nabar la gaarsiiyo qof xoolo ka maqan yihiin meelahaasi ka fakaraan maya afwigu waa fil hayaa kullaha nolosho dhan baa lagu maamulaa qadaayaadka siyaasiga ha noqoto qadaayaadka ummaddu ay leedahay ha noqoto سياسة الحروب هالنقطة سياسة الخارجية هالنقطة سياسة الداخلية هالنقطة انت بقران قوة الماما مسألة العفو حل كيدوية وحين الشيخني ضدك مدح ذا إلهي نوت الماما يخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والنبي سيكوير عليه الصلاة والسلام ليدرشيب كومد ضدك هيا waxaa kaloo tilmaami karaa fi siyaasa daakhiliya groupka kula socda kooxda wada joogtaan waxaa laga yaabaa inaad jaaliyadtiin inaad masaajid tihiin inaad urur ka weyn tihiin inaad qabiil tihiin inaad gobol tihiin inaad waddan tihiin wuxuu doonaba ha noqdo ilaahay nebi moxamed buu inooga warramaya calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed oo dhibi soo gaadhay قصدي كصاب سنيد غزوة أحد دقال بو صابحي نبيه لمن منافقين هذا هدلي عيدا كي سدح ميلو دو ميل بي شبصده تضوى بقل بو صهري نبيه كن نبوتي سدح بقل بحري تضوى دي بقل الصهري أيو قلب بور ساري وحولي مر نبه كسو دقينا وحك استوى عركتان دقال كي باب بلا مي قال دي بالسي تشبيي nimankii buurta saaraa waxay yidhaahdeen warde nebigu muraadku lahaa waxay ahayduun dee meesha ayaan laga imanayna gaala jabtayba imaka warma hadhine aan xoolaha wax ka qaadanayna dhaadhiciya bay yidhaahdeen intoodii badnayd baa soo dhaadhacday khaalid bin waliid iyo koox ka midaba waxay aragtay booskaasi inuu bannaan yahay dabeetana xagga dambu ka soo maro muslimiintii baa dib loo jebiyey jabkii muslimiinta dambe wuxuu gaadhay in firdadkii raggii markuu jabay qaar orodkii madiina ku galeenba goobtaba ka tageen qaarna iskaba fadhiisteen oo dagaalkaba ka baxeen nebi maxamedna laguba yidhi wuu dhintay isna waa la dilay guul sare bay gaaladii yeelatay gacanta sare yeesheen mar dambaa nebiga iyo koox yaro ku soo hadhay insixaab inay bal meesha ka baxaan oo meel buura u baxaan نبي محمد بورتي لو بحي وكري كري واي عليه الصلاة والسلام ولما التاريخ واحد شاقا صحابي با أفر يستينو يسكت أقوى ماشي لكرسي حتى واحد لينا هذا الصلاة دي فردقو كنتو كذا وكعي كري واي الكهن هو سقار بلا تشبي برتي مدح وقو شفتي دبرنا ذا كاقا الشي ويتشكي سديق بالا كانا
markanuu kasii dhex baxayo saxaabadii la socotay 7 ansaari buu yidhaha waryaa inaga dhicinayo mid ugu baxo 7 kow lagaga siiyey nebiga ilaalintiisii waxaa soo gaadhay dhib aad u tiro badan leh muslimiinta qaa'idkaasi sidee laga rabaa markaa inuu dadka u maamulo ninka qaa'idkii arkaya munaafiqiin inay ciidankiisii barjabsatay kuwii uu amarkii siiyey inay meeshii ka soo dhaadhaceen dagaalkii markuu xumaaday rag inay tawaliyo musaxaf sameeyeen oo baxsadeen qaar inay dagaalkii iskaga mushkiladaas intaa leeg baa dhacday ilaahay baa qur-aan soo dejiyo nebi maxamed la hadlayo waxaa la yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum ilaahay naxariis xagtiisa ka timid daraaddeed ayaad linta lahum baa ilahay yidhi ayaad ugu dabacsanaatay ee walow kunta fadan ghalida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad qof adag oo qalqallafsan oo qalbi engegan ahaan lahayd waa kaa yaaci lahayn baa ilaahay yidhi maxay samee baa la yidhi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam suu ciidankiisi iyo wixiisii u wato ilaahay wuxuu ku yidhi facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr dadkan cafi baa la yidhi ku ciidanka ha jabsaday ku meeshii ka soo kacay ku cararay waxaan oo dhan cafi baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kow oo wastakfir lahum wixii dembi ka dhacayna waa dembaabeen ilaahayna dembi dhaaf waliba u weydiin intaa kadibna taladay kula leeyiin baa ilaahay leeyahay washaawirhum fi lamr arrinta taladana wax ka sii baa ilaahay leeyahay innaga haddii dadku xumaadaan oo gruub baa waxay dhahaa war dadku waa khayr beelayaale bal inagu aan u shiro oo maaragtay inteennan yari aan dadka khayrka ku afduubno maya dadka lama afduubo ilaahay wuxuu leeyahay weliba taladay kula leeyihiin washaawirhum fi lamr waxaan uga jeedaa markaa aayaddani waxay tilmaamaysaa fi siyaasa daakhiliya ummadda in la maamulo oo la wado oo laysu keeno aana gudahaaga burburin qaa'idka iyo leadershipka waxyaabaha koowaada laga rabaa waxa weeye inuu noqdo qof cafwi badan si uu u wadi karo ummadda uu hogaaminayo ama fi siyaasa alkharijiya markay timaado adiga iyo cadowga nebi maxamed iyo ishayee calayhi salaatu wasalaam gaalo socanka maaha mushrikiin ilaahay aan rumaysnayn ee cid kale ugu shirig yeelaya oo gaalo ah oo gaalnimada ay u dheer tahay colaadi oo nebi maxamed ka saaray maxay dhulkii uu deganaa oo dhib badan u geystay laba qisaan iyana idin tilmaamay nebi maxamed maka markuu arkay inaan waxba la dhegaysanaynin wuu ka baxay wuxuu yidhi bal cid kaloo wax kaa dhegaysata u tag magaalo daa'if la yidhaahduu tegay daa'ifna dhagax baa lagaga soo saaray dib baa loo soo caymadiyey waa la soo shiiday yani waa la soo tuuriyey kadib uu ka yimi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari waxa uu tilmaamayaa inuu soo dhaqaaqay isagoo mahmuum ah warwarsan oo nebigu wuxuu leeyahay lama fiq maan baraarugin buu nebigu leeyay yacni siduu mahmuumka u ahaa maan baraarugin ilaa iyo anigoo maraya maxay qarni thacaalib mooyaane qarni thacaalib waa meel in badan ka baxsan taa'if yacni wixii lagu sameeyey maka wuxuu kaga soo baxay iyo qoladani waxay kaga hortimi iyo say nolosha cidhiidhiga ugu geliyeen isagoo khayr sheegayay wuxuu socday isagoo aan waxba kala garanaynin socda mahmuum ah warwaraya meeshaa markaan marayay ayaan baraarugay buu nebigu tilmaamay ifaaqa buu sheeganaya wax kala garasho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa malag u soo diray malag baa cirka ka yimi malagii wuxuu yidhi yaa muxamed in allaha qad samica qowla qowmik nebi maxamedow ilaahay waa maqlay tolkaa waxay kuugu jawaabeen wa ana malaku ljibaal aniguna waxaan ahay malagii buurahan wakiilka ka ahaa waqad bacahanii rabbii ilayka litaamuranii bimaa shi't famaa shi't
ilaahayna wuxuu ii soo diray maanta inaan adiga amarkaaga qaato malag baa ilaahay soo diray nebi maxamed la yidhi maanta amarkiisaad fulinaysaa haddaad rabta buu leeyahy buuraha labada buurood ee maka hareeraha ka xiga makii magaalo yar bay ahayd waagaa iminka waa buuro tiro badane markaa laba buurood oo qudhay dhexdooda ku taallay magaalo yaroo laba buurood hareeraha ka xigto haddaad rabta buu leeyahay maka labada buurood oo hareeraha ka xiga baan goyn dushaan ka saari reer maka waa tirtiraya ee famaa shi'ta maxaad rabtaa adigu haddaba innagu maxaynu yeeli lahayn baad u malaynaysa haddii magaaladan lagaa saaro oo ta kale lagaa soo saaro oo dawakha aad socoto oo aad mirowdo markaad kontineeyo kilomitir marayso haddii ilaahay malag kuu soo diro la yidhaha labadii kooxood maxaa lagu sameeyaa nimankii caynkaa kuu galay ilaw malaa dhulka la goobaa kaa soo horrayn lahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdah laa yushriku bihi shay-a maya weli waxaan ka rajo qabaa amal buu qabaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay kuwaa hadday iyagu xataa ay diideen dhabarkooda in rabbi ka soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo diintan u gargaara yacni mushrikiin buu cafwiga intaa leegu hayay mushrikiin laleeyahay haddii aad rabto buurta ha la saaro oo haddamaan ayuu nebi maxamed wuxuu arkaya calayhi salaatu wasalaam weli inuu rajo ka qabo qiso labaad aan tilmaamno qurayshi nebi maxamed waxay la dagaalamaysay marka aynu ka reebno 2 sannadood oo ay heshiis kula jireen fatxu maka wuxuu dhacay sanadkii 21aad ee bictadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni 13 sannadood oo uu maka joogay iyo 8 ka dambeeyey sanadkii 6aad ayaa sulxu xudaybiya dhacay heshiiskii waa buriyeen 2 sano gudahood sanadkii 8aad buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo noqday cid aa 21 sannadood is hayseen oo 19 sannadood oo ka mida dagaalku idin iclaansanaa oo istilayseen maalintaad ka xoog badato maxaad yeeli lahayd 19 sano 21 sannadood cid ay is hayseen oo 19 sannadood oo ka mida dagaal dhexdiina u taagnaa ayaad ka guulaysatay oo aad magaaladiisii qabsatay maada tasnac maxaad samayn lahayd nebi maxamed wuxuu yidhi markuu maka qiimay calayhi salaatu wasalaam maxaa u malaynaysaan inaan yeelayo isbihinbihis bay bilaabeen marka akhun kariim wabna akhun kariim wakada walaal fiican iyo markan waa laga gacan sarreeya nebi maxamed oo ay xoolihiisii qaateen oo saxaabadan la socota xoolahoodii la qaatay oo raggiisii qaar ka mida sidii loo toorjar garanayay toorjar ku dhinteen reer aaliyaasiroo dhami toorjarkay ku dhinteen oo ragga qaar sidii loo toorjar garanayay soo baxsadeen oo dhaawacyadii weli ku yaalin oo ragga badh xoolahoodii iyo waxoodii baa lala wareegay oo intaasoo dagaaloo la dilay intaasoo nin oo ragga ka mida lagu dilay nebi maxamed adeerkii baa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam xamza bal ee la qalay oo tamtiil lagu sameeyey oo la googooyey waxaasoo dhibaa soo dhacay maantaanu ka xoog batay iyadoo waxaasoo dhibi dhacday maalintii uu ka xoog batay buu wuxuu leeyahay maxaa filaysaan iyagu waxay leeyihiin walaal fiican iyo in adeer wanaagsan baanu kaa filaynaa culamaa'i taariikh waxay sheegeen inuu yidhi idhabuu fa antum tulaqaa culamaa'i alxadiid riwaayadda kan riwaaya ahaan waa daciifiyaan laakiin riwaayo kaloo daciifa laakiin markay isu geegeeyaan ay xasan ku sheegaan baa jirta oo ah inuu ku yidhi qowlkii nebi yuusuf walaaladii ku yidhi laa tatriiba calaykum alyowm calaa kullin si kastaba u dhigo nebi maxamed wuu iska cafiyey idan fi siyaasa alkhaarijiya ee dowladda islaamiga ama ummadda muslimka ah waxay ku dhaqmi kartaa dad colaadi kala dhexaysay oo gaalo ah oo 19 sannadood ay ishayeen oo intaasoo dhan dagaalu ka jiray oo waxaasoo dhaawac iyo dhimashadii kala dhex mareen ayaa la cafiyi karaa si mushkiladaa loo soo afjaro ay u dhammaato waxaa leenahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la isku dayey dil dhammaantii in la dilo oo maxay ah in badheedh loo dilo
in qarsoodiyo makri lagu dilo, in sun lagu dilo, in sixir lagu dilo, intaba waa lagu isticmaalay. intaaba iyadoo lagu sameeyey buu intiiba cafiyey. intaaba iyadoo lagu sameeyey ayuu intiiba cafiyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo la socotay dagaal baa laga soo noqday. meel dooxa ah baa la yimi, laba buurood dhexdood dooxa ah. dooxi baa la seexseexday, muddaa la soo lugeynayay dheer. dabeetana dhirta hoosteeda laysu qaybiyey, waa la iska jiifjiifsaday. nabiga calayhi salaatu wasalaam geed ka mida dhirtay u daayeen siduu nebigu kaa isagu u seexday. geedkiiba hoos seexday, seeftiisiina wuxuu sudhay geedka. isagoo jiifa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaale dadka soo dhex marayoo seeftii nebiga xagga sare sarrayd buu la soo daadegay. dabeetana intuu galka ka saaray buu nebiga isla dul taagay. nebi maxamed wuxuu indhaha kala qaaday iyadoo seeftiisii nin kale gacantii ay ku jirto oo lala dul taagaya isna uu jiifo. gaalkii wuxuu yidhi markaa man yamnacanii mink, yaa iga kaa dhicinaya, yaa iga kaa celin. seeftiina wuu haystaa, nebigu waa jiifaa, saxaabadii dhirtay ku kala maqantay oo waa la hurdaa. yaa iga kaa dhicin buu yidhi. xadiidka bukhaari ku yaalla. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah, ilaahay baa iga kaa dhicin. riwaayadda bukhaari waxay tilmaamaysaa galkuu seefta dib ugu celiyey. riwaayaad kale khaarij albukhaarina waxay sheegayaan waabay ka dhacday. dabeetana nebiguna wuu qaatay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi bal anigana yaa iga kaa dhicinaya. wuxuu yidhi ku seef qaata kuu khayr badan noqo, iska kay cafi. waa iska cafiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. saxaabadii way yimaadeen. wuxuu yidhi aniga ninkan qisadana dhex martay ma maqasheen? waa maxay baa la yidhi. nebigu saxaabadiiba u sheegay geedkan seeftaydiiyo sudhan intuu la soo daadegay inuu isla dul taago u yidhi yaa iga kaa dhicin. waa kuma madaxweynaha maanta dunida joogay inta qasrigiisa loogu galo xabadda dhafoorka lagaga qabta intay ka binisto oo odhanaya iska sii daaya. waa iska cafiyey. mise khiyaana alcudmaa baa lagu qaadaya. nebi maxamed uu iska dhaafay, saxaabadiina lama hadal, gaalkii waa iska tegey. mar labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo yuhuud baa isdishay. khaybar markii dhowr maalmood dagaal ka socday oo maalmihii hore la furan kari waayey, akhiiran waa la furtay. khaybar bay gacanta ku dhigeen. gaaladii way isu tagtoo waxaa la yidhi maxaynu samaynaa? waxaa lagu tashaday in la dilo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. haddii seeftii iyo xooggii lagu dili kari waayo o layska dhicin kari waayey, in qaab kale loo dilo oo maxay ah? in la sumeeyo. neef adhiya ayaa la soo moofeeyey, si fiican loo soo sameeyey. dabeetana waxaa la yidhi waa ku casuunay, raashin baa loo keenay. ahlu kitaabka raashinkoodu markay dee si xalaala u gowracaan waa xalaal, muslimiintuna waa cuni jirtay. nebiguna hadiyaadka ma diidi jirin. hadiyad gaal keena iyo mid muslim keenaba wixii hadiyada nebigu u qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam. markii la siiyey waa u soo fadhiistay, cunaduu bilaabay. ilaahay baa u warramay in neefkani sumaysan yahay, dabeetana wuu dhigay. imaam albukhaari wuxuu leeyahay waa la isugu yeedhay yuhuud wixii meelahan jooga, waa la isugu yeedhay. ijmacuu ilaya man kaana haahunaa min alyahuud. isugu yeedhay buu yidhi, waa loo yeedhay. wuxuu nabigu ku yidhi war su-aal baan idin weydiinayaa, run may sheegaysaan yahuuday? su-aal baan idin weydiinayaa, run may sheegaysaan? waxaa la yidhi haa. su-aashii tooska ahaydoo hore ma weydiin nebigu, iyo mid kale weydiiye. wuxuu weydiiyey man abuukum, qole ma ahaydeen, reer ma ahaydeen? dabeetana waxay yidhaahdeen hebel baana dhalay. oday aan odaygoodii ahayn ay ku abtirsan jireen bay sheegteen. wuxuu nebigu yidhi kadabtum bal abuukum fulaan, been baa ii sheegaysaana reer hebel baa tin, hebel baa idin dhalay. waxay yidhahdeen sadaqta, run baad sheegtay, reer hebel baanu nahay, arrintu waa caddaata. wuu ku celiyey nebigu, wuxuu yidhi su-aal baan idin weydiinayaa, run ma ii sheegaysaan? haa bay yidhaahdeen. wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam man ahlu naar, naarta ayaa gelaya.
waxay idhahdeen annagaa in yar gelayna dabeetana waa nooga dambaynaysaan waxay iyagu rumaysan yihiin 40kii cashe ay dibiga caabudeen in la cadaabayo laakiin wixii ka dambeeya inay yuhuuda ahlu jannatay marka waxay idhahdeen in yar baanu ku jiraynaayo waad nooga dambaynaysaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ikhsa'uu fiiha wallaahi laa nukhlifukum fiiha abada waar ku hooga ilaah baan ku dhaartay inaanan idinka dambaynaynin su-aashuu ku soo celiyo wuxuu yidhi war yuhuuday waxbaan idin weydiinaya run may sheegaysaa waxay idhahdeen ha run waa kuu sheegaynaa dee haddaanu been sheegna waabad garan bay idhahdeen maxaanu beenka sheegi waa runtaanu sheegaynaa haatan bay idhahdeen wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hal jacaltum fi hadi shaati summa laxdan neefkana ay keenteena hilibka ah sunma ku soo darteen waxay dhahan qaaluu nacam haaba soo samaynay bay idhahdeen laakiin yuhuud waa dad intelligent ah waxay raadiyeen waddo ay ka baxaan oo kale hawaa ku darray bay idhahdeen ma xamalakum calaa dalik buu nabigu yidhi maxaa idinku kalifay inaad soo samaysaan cunnada ay siinayseen waxay dhahdeen waxaanu is lahayn dee hadduu beenaalayayna ha idin dhaafo hadduu nebiyeyna ilaahay baa u sheegi doona yaa waxaanu is lahayn bay idhahdeen hadduu beenaala yahayna dee ha idin dhaafo haddii kalena ilaahay baa u sheegi doona nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwii sumeeyey ee raashinka sunta ugu soo daray uu iska sii daayay waxba kuma odhanin walidaalika uu imaam albukhaariy xadiidkan wuxuu ku keenayaa baab uu bixiyey baabu idaa gadara almushrikuuna bilmuslimiina hal yucfaa canhum buu yidhi kani wuxuu baab u yahay mushrikiintu hadday khiyaameeyaan muslimiinta oo qadri sameeyaan ma la cafinaya mise la cafin maayo dabeetana xadiidkan buu keenay يعني waxay tilmaamaysaa fi siyaasa alkhaarijiya fi lxuruub fi lacdaa in lagula dhaqmi karo qadiyat alcafw sidaa ogeed baa xadiidka kale saxiix ee bukhaariba warinayo waxa uu tilmaamayaa anas ibnu malik man taqama rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam linafsihi qatun weligiiba nebi maxamed inaanu naftiisa u aargudanin wax isaga ku saabsan shakhsiyadiisa ama dil ha noqdo ama boob ha noqdo ama dhac ha noqdo ama dhaawac ha noqdo wax naftiisa la gaadhsiiya ama cay iyo beenin ha noqdo waxay doonaysa ha noqoto inaanu aargudanin yacni waxaynu haynaa marka nebi maxamed oo gaalo kula dhaqmay cafwis nebi maxamed oo saxaabadiisii kula dhaqmay siyaasad daakhiliya ku dhaqay siyaasa alkhaarijiya ku dhaqay cid walba cafi kula dhaqmay bini aadamka waxa ugu adaga kala gaadhaa waa maxay waa dhiig socanka maaha waa dil miyaa wax ka adagoo bini aadam kala gaadhaa jiraan dil baa ugu adag ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa dilka ilaahay wuxuu yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faatibaacun bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan dalika takfiifu min rabbikum waraxma ilahay wuxuu leeyay faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ninka laga cafiyo min akhiihi ay min dami akhiih labadii isdilay baa walaala laga dhigay dabeetana waxaa la yidhi ninka laga cafiyo dhiigga walaalkii wax ka mid ah ee markaa diyo la weydiisto ciddii diyada rabtay faatibaacun bilmacruuf baa la yidhi si fiican diyada u raadsada kuwii kalena waxaa la yidhi maxay wa adaa-un ilayhi biixsaan yacnii qofka marka la dilo fi shariica alislaamiya saddex ama labadaba way sheegaan culammadii baad xaq u leedahay ciddii aabbahaa dishay ama walaalkaa dishay waxaad xaq u leedahay hadduu kaysku ku caddaado maxkamad la soo taago in lagu dilo waxaad kaloo xaq u leedahay inaad iska sii daysid oo compensation aad qaadatid diyada waa compensation inaad qaadatid mag oo aad sii daysid waxaad kaloo xaq u leedahay inaad iskaba sii daysid oo tidhaahdid diyana kaa dooni maya cafis si aadaan kuu sii daayay ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa markaa dadka mu'miniinta ah hadday istilaan inay suurtagal tahay inay iscafiyi karaan faman cufiya lahu walidalik ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurati almaa-ida wuxuu tilmaamayaa wakatabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi waalcayna bilcayni waalanfa bilanfi waaluduna biluduni waasina bisini waaljuruuxa qisaas
faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaaratu lah. ilaahay wuxuu tilmaamay nafta in naf loo dili karo, il loo ridi karo, san loo goyn karo. markii lasoo tilmaamay qisaas oo dhan ayaa ilaahay wuxuu yihi faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaaratu lah. cidda sadaqadaysata, maxaad sadaqadaysanaysaa? inta il lagaa riday baa tidhi waa ku dhaafa iska tag, inta san lagaa gooyay baa tidhi iska sii daayay, inta dheg lagaa jaray baa tidhi soco, inta kaa dhashay la dilay ayaa tidhi iska tag. faman cufiya faman tasaddaqa bihi baa ilaahay yidhi fahuwa kafaaratu lah. cidda sadaqadaysata ay bilqisaasi fi nafsi sadaqadaysata iyo wixii ka hooseeyaba. ayuha alaxiba, waxa aynu sheegaynaa markaa wuxuu yihi anas ibnu malik, xadiidka abu daawud iyo nisaa-i iyo ibnu maaja warinayaan, sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo, ayaa wuxuu leeyahay maa ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rufica ilayhi shayء fiihi qisaasun ilaa amara fiihi bilcafw. anas baa wuxuu leeyahy 10 sannadood nebi maxamed u shaqaynayay, weligay maan arag buu yidhi qadiyad qisaas oo nebi maxamed loo keenay ilaa iyo wuxuu ku yidhi waaris cafiya. yacni maxkamad laysula yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu marka hore wuxuu u bandhigay iyadoo dil ah ama wax ka hooseeya ah, waar cafiska qaata, iscafiya. walidalik baa waxaynu leenahay dhaqankii dadkii muslimiinta iyo saxaabadu noocaasay ahaayeen. waa kuwa ka sheega ninkii uu nebigu ku tilmaamay hada sayid ahli lwabar, axad asaxaaba qays ibnu caasim alminqariy, ayaa waxaa la tilmaamaa isagoo golo fadhiyo ayaa la keenay inankiisii oo la dilay, maydkiisii iyo kii dilay oo laysku wado. waxay yidhahdeen sidii uu fadhiyay xataa hay-adda ma bedelina, wuxuu yidhi waar kanna waa ka nixiseenay iska sii daayay. isna wuu la hadlo wuxuu ku yidhi tolkaana waad yaraysay, erayuu u sheegay. kii dhintayna wuxuu yidhi war balkanna soo maydho markaa kafantiisa iyo maydkiisa diyaarsaan i yeedha. islaantii dhashanay buu yidhi waa qariib bay reeraha ku tokamay dhalane, ninkan magtiisiina geelayga halkaa jooga ka kaxeeyo islaanta siiyo. wuxuu sameeyey inankiisii oo la dilay inuu cafiyo, ninkii dilo sii daayo. islaantii inanka dhashayna compensation inuu siiyo, wiilkana inuu yidhaahdo markaa diyaarisaan uuna igu yeedha, wax weynba aanay ku ahayn. waxaan tilmaamaynaa markaa dilku hadduu yahay wixii ugu weynaayoo la cafiyi karo. xudayfa bnulyamaan iyo aabihii, labadii saxaabi, dagaalkii beder waa kuwii kaga hadhay, heshiiskii ay gaalada la galeen. dagaalkii uxud bay ka soo qayb galeen. niman qariib oo aan xoog loo garanayn bay ahaayeen. wakhtigii muslimiintu ay jabayeen oo arrintu qasantay ayaa muslimiintu xataa iyagii iskala garan waayeen oo seefta iska asaleen. xudayfa ibnulyamaan baa wuxuu arkay aabbihii iyo muslimiintii ku goobteen oo ay gaal u haystaan oo la dilayo. waa aabihii oo muslima oo safka muslimiinta ku jiro soo dagaal tegay oo la garan waayo qolo kaloo muslimiini seefta ku boobtay. markaasuu ku soo cararay isagoo leh abi abi abi, war waa aabbahay, waa aabbahay. kama soo gaadhine odaygii alyamaan lo odhan jiray maalintii uxud muslimiintaa dishay kaw kaga siisay. xudayfa markaa isa soo taagay isagoo aabihii la dilay, raggii aabihii dilayna ay meesha taagan yihiin. xudayfa wuxuu ku yidhi markaa gafara allahu lakum, ilaahay idinkana dembigiina ha dhaafo. waa nimankii aabihii dilay kuwa u ducaynaya, wuxuu leeyahy waa aabbahaye gafara allahu lakum, dembigiina alla ha dhaafo. culamaa ilxadiid waxay dhahaan maantaa kadib khayr kama zuulin xudayfa. ayuha alaxiba, waxaan leenahay cafisku qadiyo fardiya wuu noqdaa oo qofku inuu fardi wax u cafiyo. waxa ugu weyne qof la gaadhsiiyaana waa in ama isaga wax la yeelo ama la dilo ama dadkiisa la laayo. iyadana fi shariica cafisku waa ka suurtagal.
qadaayaadka siyaasiga ummadana waa lagu maamuli karaa oo nebi maxamed waxaa yidhi fi siyaasa daakhiliya ilaahay wuxuu faray facfu canhu wastakfir lahum washaawirhum fi lamr siyaasa alkhaarijiyana waa lagu maamuli karaa oo gaalo intaa la isdilayay ayaa uu nebigu cafiyay calayhi salaatu wasalaam bulshada dhaqankeeda kalena wixii waxaa ka hooseeya wuxuu doonaba ha ahaado qur-aanku wuxuu inooga warramayaa xaadithat alifk iyana maxalu shaahidku baan tilmaamaya xaadithat alifk maxay sheegaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisii oo ceeb laga sheegay aan jirin ceebtaasi dadkii ismoodsiiyey waxaa ka mid a niman munaafiqiin oo ka qayb galay iyo niman saxaabo oo run mooday saxaabadii runta moodee warkan sheegay waxaa ka mid a gabyaagii muslimiinta ugu weynaa xasan ibnu thaabit ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah nebiga gabadh ay xaaskiisa walaalayiin xamna bintu jaxash saynab walaasheed waxaa ka mid ah saxaabi yaroo kale oo mistax ibnu athath la yidhaahdo oo raggii soo hijroodaya muhaajira mistax ibnu athath hooyadii iyo abibakar waa habro wadaag marka abibakar waalid buu ugu toosan yahay isla markaasi abibakar dadkii fuqarada ee muslimiinta uu nafaqay jiray waxsiin jiray waxaa ka mid ah mistax iyo hooyadii mistax wuxuu ka qayb qaatay dadkii caasho wax ka sheegay muddo bil abaa warkaasi magaalada madiine ku jiray oo ilaahayna aanu waxyi ka soo dejin arrintaaba ka warramaya dad badan waxaa la isku dayay in laga dhaadhiciyo inay run tahay waxa kale waa cirdigii nebiga wax laga sheegayo bil kadib baa ilaahay samada qur-aan ka soo dejiyey sheegaya caashi inay beri tahay wax ceebana inaanay samaynin saxaabiga lagu hafrayna inuu isna beri yahay wax ceeba aanu samaynin abibakar radia allahu canhu wuu cadhooday markaa wa min caadati abibakar ma garanaya saa u taqaaniin abibakar nin aada u kulul buu ahaa markuu cadhoodo abibakar qisaska kutub alxadiid ay ka wariyaan waa nin kulul sharaara leh laakiin wuxuu ahaa nin qabow oo qabsoomi og markayba isqabtaa abibakar wuu cadhooday markaa wuxuu ka cadhooday ninkaa tolliimo iyo qaraabanimo dhowri waayey ee inantaa yaree nebi maxamed uu qabo ilaalin waayey ee waxsiinta iyo yadda dhowri waayey ee ka qayb galay way u cuntami weyday ninkani inuu sinaba isagu ka mid noqdo dadkii caasho wax ka sheegay laakiin abibakar waxbaan dilayaa iyo baabka ma marine wuxuu yidhi uun waxba damba ku siin maayeena kala kaxee wuxuu go-aansaday ninkan inuu wixiisuu ka haysto waa intaa un abibakar wuxuu go-aansaday ninkaa tolka iyo qaraabadaba ay yihiin ee uu waxsiinaya biilayay ee haddana ka qayb galay caasho warkeedii inaanu wax damba siinin warina kala kaxee buu ku yidhi waxba damba aanu ku siin maaye ilaahay baa qur-aan soo dejiyay abibakar lala hadlaya inta la mid ah walaa yaatali ululfadli minkum wasaca ilahay wuxuu uhi yay dhaaranin kuwii ilaahay barwaaqada iyo nimcada dheeraadka siiyey yay dhaaranin inay foqorada iyo masaakiinta iyo muhaajiriinta wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilaahay yidhi ee maxay sameeyaa la yidhi markaa waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum baa ilaahay yidhi ilaahay wuxuu leeyahy ha cafiyaan oo ha ka jeestaan ha ilaabaan arrintaasu ha cafiyaan war miyaydan jeclayn baa ilaahay yidhi in idinkaba ilaahay dembigiina dhaafo abibakar wuxuu yidhi ilaah waa jeclay inaad dembigayga dhaafto wixii uu siin jiray dib buu ugu qoray waa waqaaf cinda alxaqi buu abibakar aha su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan adigu ilaahay baa ku abuuray oo ku nimceeyey oo ku caafimaadiyey oo wax ku siiya imise goor baad caasidaa se imise goor baad haddana baridaa maalin kastaa macsiya inaga dhacdaa midaad xamatay iyo midaad maagtay iyo waxaad sheegtay maalin kastaa cisyaa kaa dhaca haddana inaad yaa rabbi tidhaahda kama zuushid ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu waa qaldamay dembi dhaaf aad tidhaahdo ilaahayna wuxuu kuu ballan qaaday haddaad soo noqoto inuu kuu dhaafayo ilaahay wuxuu leeyahy alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum idinba intan waa samaysaan anoo idin nimceeyo idin abuurtay oo idin leh ayaa wixii aan idinku nimceeyey weliba igu caasidaan baa ilaahay leeyahy miyadan idinba jeclayn inaan anigu dembigiina dhaafo idan
haddaad adba jecesha in ilaahay kuu dembi dhaafo adiguna basharka inta dembi kaa gasha iska cafi waxaynugu filan qisatu yuusuf oo aan hore uga warrannay nebi yuusuf oo walaaladii intay u tashadeen god ku rideen oo dabeetana godkii ay ku rideen uu ka ratibmay in la addoonsado inuu dhulkiisii ka fogaado inuu xabsi galo xabsi ka soo baxo madax haddana isagoo noqday bay mar labaad hafreen oo markii suwaacil meliga inanka yar loo qariyay waxay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl hadduu kani wax haday walaalkiisii hore tuugaha waa hortaagan yihin waa ninkii godka lagu riday waxaa loo sameeyey oo hadda madaxa ayaa haddana waxaa lagu leeyahay tuug baad ahaan jirtay ila garan maayaana waa isagii bay la hadlayaan markaasuu ka xishooday inuu ku yidhaahdo idinkaa tuug iyo imtixaan baa ahaan jiray ayuu ka xishooday muxuu yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi faasaraha yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu antum sharu makaan naftuu ku qarsaday baa ilaahay yidhi oo kor uma odhanin hoostuu wuxuu ka yidhi niyaddiisa idinkaa ka shar badan yuusuf maagaysaan idinkaa ka shar badan buu hoosta ka yidhi nebi yuusuf oo caynkaasi markay walaaladii oo baahan u yimaadeen wuxuu ku yidhi laa tatriba calaykum alyowm yakfiru allahu lakum canaani maanta korkiinna maaha buu yidhi ilahay dembigiinna ha dhaafo weliba canaani korkiinna maaha ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya qadaaya almujtamac inay tahay wax lagu xallili karaa cafisku haddaynu hoos uga soo daadegna ilaahay wuxuu ina barayaa qadaaya alusra wax lagu xallilo mushkilaadka usriga haddaynu nidhi mushkiladda dowladda waa lagu xallili karaa khaarijiyan iyo daakhiliyan labadaba haddaynu nidhi qadaaya almujtamac waa lagu xallili karaa cafwi aannimaadda kuwa guriga usrada ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu maxaa ku xiga watasfaxuu maxaa ku xiga watakfiruu fa ina allaha gafuuru raxiim ilaahay wuxuu leeyahay carruurta iyo haweenka iyo duul baa ka mida col idinla ah ee digtoonaada laakiin maxaa la yidhi wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu fa ina allaha gafuuru raxiim reerka iyo carruurta mashkilaadka ka yimaada xalkoodi waxa weeya haddaa cafidaan oo ka jeesataan oo ka roonaataan baa la leeyahay ragow fa ina allaha gafuuru raxiim idan mashkiladda qoyska islaantii baan u taaglaa iyo way muran badantay iyo waa intan waa adiga dulqaad yaridaada wax badan baa inaanad maqali ay ka roon tahay inaanad ka murmin ay ka roontahy aan idhaahno gurigu goormuu uga adagiyay nin iyo gabadhe isqabaa markay kala tegayaan soo maaha hadday go-aansadaan inay isfuraan macnaheedu ma iyagoo ay faraxsan yihin bay isfureen may waa laba reer oo xal waayey inay wada noolaadaan waxay ka quusteen wada noolaanshiyihii waxay go-aansadeen inay maxay inay kala tagaan bay go-aansadeen ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida fanisfu maa faradtum إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى با إلهي هداد هوين فرطان با إلهي انت أيضا قلمون أساد سي أمك عودين مهر حويا نيني قبل با يسكور سدي مهر كينا والله شيغي مركي شرطي ماها يعني مهركو مركو هورين لا شيغي ولكن والله شيغي مركي قوركو داعي وحا يري $10,000 $5,000 $1,000 baa meher ku yahay waa la magacaaba $1,000 oo meheraa la sheegay ninkii inankii iyo inantii intaanay guri wada gelin baa la murmay la isqabtay waxaa la go-aansaday in la kala tago labadii qof gurina may wada gelin waana isqabteen waxay go-aansadeen inay kala tagaan maxaa la yeelayaa ilaahay wuxuu yidhi xukum ahaan waxa weeyaan farisfu maa faradtum gabadhaasi mar haddaan loo galmoon oo looba iman oo ay cidlo kala joogeen meherkii waxay leedahay nus haaf bay leedahay badh meherka badhkii bay leedahay laakiin ilaahay wuxuu leeyahay ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nnikaax wa an tacfuu aqrabu litaqwa inay haweenaydu wax cafido mooyaane oo gabadhu xaq bay u leedahay inay tidhaahdo waryaah
waxbaha nuslayne nusna haysiinine raalli haw waa kaa cafiye nuskana iska tag inay ku tidhaahdo cagsiga ninkuna xaq wuxuu u leeyahay inuu yidhaahdo naa waxba nusna ha ka tegina kunkaba wada qaado inuu wada siiyo ilaahay wuxuu leeyahay wa an tacfuu waragow inay wax cafidaan ayaa aqrabu litaqwa idan markay noloshu labada qof ugu adkayda ahayd inay kala tagaan ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala masalati alcaf inaa ku dhaqantaan weeyaan ayuha alaxiba waxaan leenahay mar hadduu isugu la soo fadhiistay waa kaa dhammaataan u fahmayahay waxaan leenahay warku wuxuu ku dhan yahay umamku dhibi way dhacdaa qoys bay ka dhacdaa bulshay ka dhacdaa dowlad bay ka dhici kartaa jamaaco ka weyn bay ka dhici kartaa xalku waa maxay saddex dariiqa shareecadu bannaysay dariiqada koowaad oo ah dariskeenna maanta waa in la iscafiyo maanta Ken Hart nin la yidhaahdo professorka jaamacaddan Leeds qismi psychology-ga ayaa wuxuu leeyahay waxay caddaynayaan qoladan cilmi nafsigu caafimaadka qaybo badan oo ka midi inuu cafigu wax ka taro dadka cafiska badan bay yidhahdeen dadka cafiska badan leh inta badan kuma dhacaan bay yidhahdeen xanuunadan wadna xanuunka iyo stressiska iyo xanuunada madaxa ku dhac xanuuno badan buu wuxuu leeyahay dadka cafigu dhaqankooda ka mid yahay kuma dhaco laakiin anigu uma baahni baan is leeyahay inaan researcheska reer galbeed soo raro oo ah cafiga waa lagu caafimaadaa laakiin waxaan idin leeyahay waar ilaahay baa wuxuu idin leeyahay haddaa iscafidaan akhriya adduunba waa caafimaadaysaan ka bulsho ahaan baa u caafimaadaysaan ka qof ahaan baad u caafimaadaysaa ka mujtamac ka dawla baa caafimaadaysaan idan waa dariiq ka mid ah duruqa mushkilaadka umamka iyo dadka dhex mara loo xallilo waxaynu u baahanay markaa kow inaynu adeegsano dariiqa kan oo ah baynana wasiilo sharciya sala allahu cala nabiy muxamed wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin جزاه الله خير الجزاء شيخنا الفاضل شيخ مصطفى محاضرة runtii qayimka uu noo soo jeediyey malaha inuu caadi u dhameeyaa fiicneed hadda waxaa weeye dadku anay la dagaalsan yihiin marka insha allah waqtiga unbaa dhammaaday wayna sii socon doontaa haddii ilaah yidhaahdo berri iyo beri dambe marka ilaahay shiikha ha ku anfaco miisaankiisa xasanaadka ha u saaro annagana kuwii ku camal fal ha naga dhigo inteedaan bixin marka ogeysiisyadan sheegi doonaa